rabaa marka horeysa inaan hambaliyeeyo labada shirkadood oo shirkadda Turkiga iyo shirkadda Soomaaliga ah ee halkaan maanta heshiiska ku saxeexanaysa oo heshiis qashinka oo koronto laga dhalinayo waa horumar weyn walaalahan Turkigana tiknoolajiyadooda iyo farsamadoodana aan kala faa'iideysanayna company Soomaaliyeedna oo la falgalayo asrug ahaan aadan u soo dhaweynaa marka horeysa marka labaad sidii gudoomiyaha gobolka oo ka dhawaajiyay marka ay heshiiska oo dhaco shirkadaha ayaa waxa ku xigsan doona heshiis kale oo gobolka Banaadir oo goobjoog u noqon doona iyo wasaaradda energy-ga anaga oo rajeynayna ganacsatada Soomaaliyeed iyo shirkadaha korontadaba inaan ka faa'iideysano korontadaas sida dhibteer looga dhalin doono maxaan ku raadaa qashinkaas marka waxaan isleeyahay wax waxyaalaha qaar kood iska hor imaamaya wax is wada kaabayo waaye shirkado korontaan qabnaa dabay iibiyaan isla shirkadana ayagay dab siin doontaa dabcan marka meeshaas iskala sii talaabo qaadi doonaan waxaan heli doonaa dab oo hadda waxa dabka noogu jilicsanay ama noogu raqiisan hadda waa dabka ka dhasha maxaan ku raadaa solarka midkan qashinkuna waa ka sii jabnaan doonaa midka gaaska caadiga ah oo maxaan ku raadaa dhulka laga soo saarana waa ka sii jabnaan doonaa marba si uu noo sii noqon doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo baahida ugu badan oo dalkeena ganacsatada ay qabtana si dalkan loo warshadeeyo waa korontada waay sababtoo ah hadaan la helin koronto jaban hadaan la helin dalkaani ma horumari karo waxyaalaha horumarka u sababi doona oo warshadaheena soo celin doona oo qiimo jaban korontada noo keeni doona waxa way markaan helno koronto raqiisa waxaan heli doonaa warshado tiro badan oo dalkan oo aan uga faa'iideysan doono waxaad arkaysiin ambihii dalka oo maangihii oo ka soo go'ayo Soomaaliya gudaheeda oo noogu yaalo warshado koonfur meeshana oo beerayna ku yaal haddana dibadda nolol kaga keenaya maangiyo oo miran waxa ugu wacan macnaha warshadii qofka hadduu sameyn lahaa dabkiya qaali ah dabka marka si uu raqiis u noqdo waxaan heli doonaa meelahan yar waxyaalahan ka soo bixi doona inkastoo wali uu yahay oo sida hadda laga dhawaajiyay 2024ka ay ka sii badan doonto waxaan rajaynaynaa marka in koronto casri ah oo dib yar inaan heli doono insha Allah hadii la iraado shirkadaheena korontada oo soo dadaalayna waxaan ku baraarujinaynaa amniyada ugu dhisaynaa waqti badan ay soo hayeen dalkan waana ku mahadsan yihiin shaqada ay noo qabteen waliba khaasatan shirkadda Beko oo ah hooyadii korontada ah intaas kadib waxaan rabaa aan bogaadiyo walaalahan reer Turki oo safiirkeena iyo ay u kooyisay hadaba looga dhawaajiyay madaxweyne Erdogan oo ay ka go'an tahay in dalkan iyo madaxweyne Xasan Sheekh in dalkan ay dib u baalgashaan tiknoolajiyada Turkiga aan ka faa'iideysano intaan kaliya ma ahina meelo badan ganacsatada Turkiga iyo ganacsatada Soomaalidu ay ka midoobi doontaa oo aan wax ka wada qabsan doonaa insha Allah haddii noqon lahayd warshado haddii ay noqon lahayd koronto haddii ay noqon lahayd bankiyo haddii ay noqon lahayd maxaan ku raadaa beero haddii ay noqon lahayd meelo badan oo waxa jira aan iska kaashan doono insha Allah haddii la iraado aadan u soo dhaweynaa maayarka iyo safaaradda iyo wasaaraddeena waxaan leenahay isu dhawaana iyo ganacsatada si aan isu wada kaashan insha Allah dalkaani horumar uu nooga baahan yahay anagoo dhan warshadaha boosaskooda dhan waa banaan yihiin waxaan rajaynaynaa in aan ka helno hay'adaha ku qosay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo warshadihii maxaan ku raadsaa isbiisyada dhan haysana waxaan rabnaa wasaaradda inay la falgasho ganacsatada si ay ugu soo dhaweyso sida haddaba loo bilaabo warshada caanaha ganacsatada la siiyay warshadaha kalena saasoo kale aan sugaynaa in loo wada siiyo dhulalkooda wax badan aan isla qaban doonaa mudana safiir anoo ku hadlayo magaca rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed waxaan mar labaad bogaadinaa soo dhaweynaa heshiiskan halkan ka dhacay maanta oo quruxda badan leh oo Soomaali iyo Turki ganacsatada ay wada galayaan aad u mahadsantihiin